مشروعنا مشروع 15 مليون gobolka Banaadir magaalada Muqdisho la rabo in lagu sameeyo wadooyin mashruuci hore u socday oo gudoomiye maanta la joogo iyo 7 milyan iyo bar aan ugu talagalay in magaalada Berbera wax laga qabto lacagtaas oo lagu sameyn doono arrimaha dawladda hoose u baahan tahay sida hagaajinta jidadka iyo bullaacadaha iyo meelaha muhiimka ah magaalada Berbera lacagtaasna rabnaa hadda koor midowga Yurub ku daaqay inaan seexno wasaaradda goobjoog ka yahay midowga Yurubna goobjoog ka yihiin arrimaha Soomaaliya looga faa'iido barnaamijka ra'iisul wasaare arrintaas maanta u nimi waxaan hadii aan arrintaas ku soo gabagabayno dadka Soomaaliyeed ugu bishaarayno in mashruucaas uu hirgeli doono dhawaan hadii